إن شاء الله سند abaalmarin sanadla ayaan ku dhawaaqaynaa oo magaaladii ku guuleysata iyo dawladdii hoose ku guuleysataa dawladda federaalka lacag 50,000 oo dollar ay u ballan qaadayso waxaana la yiraahdaa abaalmarinta sanadka ee dawladaha hoose iyo magaalooyinka dalka waxaan rabnaa abaalmarintaas miisaaniyadda waxaan ku dareynaa sanadkan insha Allah wasaaradda waxaan rabnaa magaalooyinka kolley criteria-da iyo qaabkay noqon doonto waa la qorayaa waana idin soo direynaa gudiyo aan 4.5 ahayn qiimeyntoodu sax tahay hay'adahaas caalamka qaarkood ay ka mid yihiin oo aan la dhahayn war ninkii fiqiyaha galmudug ka yimid magaaladii Dhuusamareeb buu siiyay baash laakiin standard la yaqaan oo maaragtay tig la siinayo magaalo walba meeshay ay ku guuleysatay maayarkii afmadowna waa nala joogaa ninkii khabiirka Maxamed Amiin waa rajaynaynaa degmooyinka tartanka qayb ka noqon doona waad aragteen waxbarashada sanad walba lagu tartamaa ciyaaraha lagu tartamaa laakiin maxay maayarada iyo degmooyinka iyo dawladaha hoose maxay tartan horumarinta deegaankooda ay u gali laayihiin oo nadaafadda soo jiidashada dalxiiska sida loo maareeyo barakacayaasha magaalooyinka degan sida dadka degan laftooda loo maareeyay imisa wax ka barata ilmaha yararka boqolkiiba 24 la yiraahdo Soomaaliya oo dhan ilmaheedu iskuul bay aadaan waxa soo dhan baa la isku qiimeynayaa ee maayirku xafiiskii kaliya uu fariisanay imisa xisaabaadkooda ay dadka ka qaadaan canshuurta dadka ay u furan tahay inay eegi karaan qofka ardayga iskuulka dhigta ama qofka kale oo muwaadinka ah oo degan degmadaas imisuu arki karaa lacagta degmada soo gasha iyo siday ku baxdo waxyaalahaas transparentiga waa soo criteria-da iyo dhammaan waa soo jeedi doonaa waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa madasha ah insha Allah degmooyinka ka mid ah ama degmooyinka kale oo naga maqan ka mid ah inay ku guuleysan doonto halkaasna dhiirigelin badan ay madashani macno badan u soo kordhin doonto waxaan rajaynayaa in shirkani uu guuleysto